أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. walaalayaal waxaa inoo bilaabanayaa programkeenii qaaliga ah oo sabti walba inoo bixi jiray. aan kula talama qaadanaysaa iyo sheekheeni sheekh Abu Talha aan uga barateen labada doornimo waqtiga Minnesota. walaalayaal haddaad u baahan tihiin su'aalaha inaan laga jaahil bixiyo ama tala aad u baahan tihiin waxaad kusoo dirsan kartaan abutalha1@gmail.com. maalin walba oo sabti ayaa su'aalihiina lagu soo jawaabi doonaa insha Allah sheekha. haddana waxaan kusoo dhaweynayaa microfonka sheekheena oo inoo sii wadi doono kelimadii aan uga baranay barnaamijkeena qaaliga ah. falyatafadal mashkuuran ma'juura sheekhuna. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم التناد، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، وموضوعني لما قعبحي أن كلت لي تلد مقاضا عاوى كلمة أن دونيو إن أنكار مريو بإذن الله تبارك وتعالى. مقعد وحال ليلة هذا هوية صوماليات هي الدرجة ذي hooyo Soomaaliyeed iyo darajadeeda ayaa kelimada magaceeda la yiraahdaa. laba qolo ayaan u dan leeyahay inay kelimadan ay dhageystaan. qolo waa ragga qaba dumarka, qolona waa caruurta la dhalay. ma doonayo hooyada xaqeeda iyo xuquuqdeeda qur'aanka ilaahay uu kaga waramay tabaaraka wa tacaala, nabiguna sallallahu alayhi wa alihi wa sallama in badan uu axaadiisa saxiixa noogu sharxay. taasi waa muxaadaro iyo waqti, laakiin kelimadan waxaan doonayaa ishaaro inaan bixiyo. hooyo Soomaaliyeed baan la sheekaystay, waxayna ii sheegtay hooyadaa Soomaaliyeed waxa ay qabato. markaasa waxaan isku dayay, anigii hooyadii Soomaaliyeed waxaan isku daynay bal inaan koobi karo bal hooyada Soomaaliyeed ee khaasatan haddana qurbaha joogta maalan, bal qiimaha iyo darajada ay ku fadhido oo ugu fadhido bulshada iyo mujtamaca, ugu fadhido zawjkeeda iyo ninkeeda, ugu fadhido ilmaheeda iyo kuwa ay barbaarinayso. xaqiiqatan waxaan dhihi karaa waan soo koobi kari weynay ilaa inaan tilmaamo oon ishaaro oo keli ah. idinkuna waad ila arki doontaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. waxaana oga jeedaa hooyada in lagu ixtiraamo oo lagu qadariyo oo lagu qiimeeyo oo lagu weyneeyo oo lagu sharfo oo madaxa iyo lugahaba looga dhunkado, loona garto waajibka intaa dhan ay hayso, oo ay gartaan ragga qaba, oo ay gartaan kuwa ay dhaleen. ujeeddada kelimadu waa intaa. xidhiidhna reerkay la leedahay, xidhiidhna qoyska ayay la leedahay. waayo hooyadu waa madaxii, hooyadu waa luguhii, hooyadu waa dhaxdii.
waxaan doonayaa si ayna kelimadu iigu dheeraanin wixii aan ka tegana waa wax waqtigu ii saamixi waayey wa ilaa hooyada qiimaha iyo darajada ay bulshada ugu fadhida lama soo koobi karo waxaase doonayaa inaan dhaho hooyadu waa mucallimad waxaan u malaynayaa warkaa inuu muttafaq yahay hooyadu waa mucallimad waa midda barta ilmaheeda diinta iyo qur'aanka iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waa mucallimad waa midda la kallahda waa mucallimadoo waa midda dugsiga geysa waa mucallimadoo waa midda madarasada geysa waa mucallimadoo waa midda ayadu waxbarta ilmaha guriga markay joogaan boqolkiiba intaasi waxa waxbara waa hooyada guriga joogta idan hooyadu waa mucallimadii soo saaraysay jiil anfaca bulshada iyo ummadda hooyadu waa murabbiyad oo waa midda tarbiyaynaysa ilmaha gacantuu wax ku cuni lahaa siduu wax u cuni lahaa siduu u seexan lahaa siduu u cadayan lahaa sida uu dharka u xidhan lahaa kullu daalika siduu carruurta ola ciyaari lahaa siduu u ixtiraami lahaa waalidka dhalay iyo ilmaha kale iyo qaraabada iyo dadka ka waaweyn intaba mar labaad iyo qodobka labaad hooyadu waa murabbiya idan marna waa mudarrisa haddana waa murabbiya qodobka saddexaad hooyadu waa dhakhtar weliba mar waa dhakhtar caam ah marna waa dhakhtar khaas ah mar waa dhakhtar caam ahoo dhammaan wax alla wixii caafimaadka ka qayb qaadanayo oo nadaafadda guud ah oo hadday noqoto guriga qaybihiisa kala duwan hadday noqoto dharka iyo qaababka loo dhaqayo ama loo xidhanayo hadday noqoto guriga hawadiisa iyo caafimaadka soo gelayso guriga in hawo la siiyo hadday noqoto qashinka iyo wixii jaraasiim iyo jeermis ka dhalan kara in la qaado mar waxa weeyaan waa dhakhtar caam ah hooyadu oo guriga jooga hore waxaan u soo sheegnay inay tahay mucallimad guriga fadhida inay tahay mudarrisad ee murabbiyad ee tarbiyaynayso akhlaaqda iyo dhaqankii guriga u fadhida haddana waa dhakhtar caam ah hooyadii mar waxay noqonaysaa dhakhtar khaas ah oo dhakhtar khaasa weeyaanoo meelaha qaarkood bay caafimaadka ku dadaali ilkihii bay kontarooli oo ciddihii bay si wanaagsan u eegi oo timihii bay ilmihii ka gaabin oy inay wax ku dhashaan ay ka ilaalini oo maxaa la yidhaahdaa cuntadii baa laga kontarooli cunto caafimaad leh oo ilmahan wax u tari kara oo brotiin leh oo fitamiin leh ayay mataqaanaa gurigii malab iyo xabadu sawdo iyo mataqaanaa cuntada qaybaheeda kala duwan ee ilmaha anfaca ayay maantoo dhan ay ka fikiraysaa suuqa hadday tagto waa dhakhtarad suuqa aaday wey waa dhakhtarad suuqa aaday wey waa dhakhtar suuqa aaday waxay kala soocaysaa waxa ilmahan u roon ayay waxaan idhi haddaba waa dhakhtarka khaaska ah oo ilkihii timihii ciddiyihii dharkii daakhiliga ahee hoose ilaa cuntadii ayaanu ku keennay mar haddana waa dhakhtar khaas ahoo waxay la soconaysaa ilmihii xanuunsaday markaasay kiniinkii iyo sharoobadii iyo wixii asaga
caafimaadkiisa ka qayb qaadan lahaa way soo jeedaysaa, way u sheekaynaysaa, hoostay gelinaysaa, biyo kulul bay maryo usoo u kulul hadday qanno adag qabato maradii bay usoo biyihii wejiga ka saaraysaa, way wareejinaysaa, hawadii bay u furaysaa. hadba sida uu ku degi kare ku caafimaadi karo. haddii intaa ku caafimaadi waayana waxa weeyaan takhasuskii iyo dhakhaatiirtii ka waaweynaa ayay markaa la raadsanaysaa. idan ara'aytum, hooyadu marka waa dhakhtar guud iyo dhakhtar gaar ah oo gurigii jooga weeye. aan ka soo socdo, hooyadu markaas isla markaa marka haddana la eego, hooyadu waa tabaakad, waxa weeyaan kijaday ku jirtaa ama jikaday ku jirtaa. dhinaca marka laga eego, mar waxaan ka eegnay waa macallin kursiga ku fadhiya, mar waxaanu ka eegnay xagga tarbiyada, mar waxaan ka eegnay dhakhtar guud iyo dhakhtar hoose, mar waxaanu hadda joognaa hooyadii maanta shaqo kalaba ma lehe, waxa weeyaan waa tabaakad, jikadii bay ku jirtaa, beriiskii, baastadii, cuntadii kale, burkii, laxooxdii, canjeeladii, wixii dadku cuni lahaayeen oo dhan ayay maxaa la yidhaha maantao dhan kan ku dar oo kan ku dar oo isu dheelitir bay maantao dhan ku haysaa. idan hooyadii mar kalena waa tabaakado, waxa weeyaan dad kanay shaqaalo u tahay. allahu akbar. qodobka kale, hooyadu mar waa waardiye oo hadday seexdaan waardiyay ka tahay, shanqadhay dhegaysanaysaa. waa waardiye oo kii dhashaday caawoo dhan hadduu isrogo oo indhahabay soo kacaysaa. waa waardiye oo albaabadii bay soo kontaroolaysaa. waa waardiye oo wax alla wixii gurigaasi dhib ku keeni karo oo dhan ayay waardiye ka tahay. ama xayawaan ha noqdo, ama xasharaad ha noqdo, ama tuuga ha noqoto, ama maxaa la yidhaha wax alla wixii wax dhibayoo dhan, mar gurigu hooyadu waxay ka tahay yacni waardiye ayay ka tahay. mar kale, hooyadu waxay ka tahay guriga dabdamis. maxaa yeelay maantao dhan waxay ilaalinaysaa yacni jikadii maxaa la yidhahdaa dabkii ma la demiyey, korontadan ma la demiyey, maantao dhan wixii dab ah ama mindi ah ama dadka wax u dhimayoo dhan ayay maantao dhan ka ilaalinaysaa. idan mar waa dabdamis, marra waa waardiye, marra waa koog, waxaa weeyaan iikeen waa koog oo waxaa weeye kijaday ku jirtaa, mar waa dhakhtar, mar waa mucallimad, mar waa murabbiyad, marra waa mas-uul oo waa qof mas-uul ah oo talinaya oo inuu waxan kala hago oo nidaam u sameeyo oo dawladdan kala habeeyo ayuu ku qasban yahay. marna wuxuu taagan yahay oo gabadha waxay taagan tahay booskii mas-uulkay taagan tahay. mar waxa weeyaan waa dhaqaale yaqaan oo waxa weeyaan dadkani qaabkay wax u cuni lahaayeen iyo sidii biilkan loo gaarsiin lahaa. hadda wuxuu fadhiyaa, hooyadu waxay fadhidaa xafiiskii dhaqaalaha iyo xaggee see loo gaarsiinayaa ilmaha dhaqaalaha ayay u fadhidaa. marna hooyadu waa la taliye oo ilmihii bay kanay la talin oo kanay la talin oo kanay la talin oo booska iyo xafiiskii la taliyaha ayay mar fadhiisanaysaa. mar waa darawal oo waxa weeyaan ilmihii bay qaadi, markaasay iskuulkii geyni, markaasay masjidkii geyni, markaasay mataqaanaa soo wareejini, markaasay wax u soo gadi. marra waxa weeyaan waa darawal, marra waxa weeyaan miyaa la koobi karaa? hooyada Soomaaliyeed horta qiimaha intaa aan sheegnay iyo ka badan ayay ragow noo haysaa oo carruuray ay noo haysaa. waxaa macal asafa marka hooyada qiimaha iyo ka badanba ku fadhida ee sidaan sheegnay, marna mucallimada oo mudarisada, marna baabkii murabbiga iyo tarbiyadii taagan, marna dhakhtarnimadii taagan, marna kijadii iyo khaadimnimadii iyo gabar shaqaale ah oo booyeyso ah sideeda guriga uga shaqaynaysa, marra waardiye ah, marra dabdamisa, marra mas-uula, marra dhaqaale yaqaana, marra siyaasi ah, marra la taliye ah, marna darawal ah. gabadha intaasoo dhan haysa ragow tala waxaa iga ah oo wallaahi aan ilaahay dartii idinkula talinayaa in arrimaha aan sheegay dib loo eego, aadna loo qiimeeyo. khalad yar oo dhacayna aan waxba daaqadda looga saarine miisaanka intaa dhan bay naga haysaa. waxaad ku garan waa murabbiya baan nidhi, ilmihii bay tarbiyeynaysaa. ninka maalin haddii laba maalmood ilmo looga tago wuu cabaabaya, caac
ilmihii oo isku qayliyey oo waraabo isku noqday oo mid boqol ku jira oo dagaal ku jira iyo asagoo halkaa fadhiyo oo amar iyo guux iyo riti guuxaya aad u malaynayso ragga intooda badan ilaa man raxima rabbulcibaad ayaad arkaysaa. markaasay gabadhu markay iridda ka soo gasho yaa sidii kalluun sidii maxaa la yidhahdaa shimbir xabsi la geliyey ama qafas la geliyey oo kale ayuu boodaya iga qabsa buu leeyahay sidii asagoon dhalin. laakiin ayadu way u dhimrin oo way u naxariisan, ayagiibaa ku soo yaaci inay xabsi ku jireen baad moodaa. war hooyooyinku waxaasoo dhan bay naga hayaane reeraheenna yayna duminin oo reeraheenna yayna ku ciyaarin. mar labada carruurta waxaan leeyahay hooyada mucallimada kuu ah ee mudarisada kuu ah ee tarbiyada ku siinaysa ee ku soo dhakhtaraysay ee cuntada kuu karisay ee waardiyaha kaa haysay ee dabdabiska kugu dadaalaysay ee mas-uul iyo ikhtisaad iyo dhaqaale iyo la taliye iyo daro walba ku ahayd markaa 18 sano gaadhay oo gaalada agtooda aad ka qaangaadhay inaad furdug iska dhahdo oo aad dhahdo maanta anigaa isu baahan, anigaa keligaybaa isku filan, waalid ooma baahni, ayadana waa ayaan darro kale wey. haddaba risaaladu waxay ku socotay ragga dumarka qaba inay qaabka dumarka u qiimeeyaan, qadarinta ay leeyihiinna ay wax ku qadariyaan ay ku qiimeeyaan, iyo carruurta la dhalay inay waalidkood sidaa u fahmaan intaa u soo qaabtay ee u soo maray. ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu reeraheena noo wanaajiyo ee isfaham dhab ana uu ka dhexaysiiyo haweenka iyo ragga isqaba, carruurta iyo kuwa isdhalay. haddana waxaan ku soo celinayaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala mayga walaalaha noo daadihinaya iyo howlwadeennada jazaahum allahu khayra aljazaa inay noo bilaabaan wixii ilaahay noo furo oo su'aalo ah. ku soo dhowaada baaraka allahu fiikum.